Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay meel walbaad caalamka ka joogtaan. Kusoo dhawaada ayaa Noora Cooking. Maanta waxaan sameynayaa sidaa u jeediin bur dhaxduleel, bur buuflow, sidaa u taqaanid sambuuska lagu cunaa. Soomaali sambuuska ku cuni jirnay. Waxaa rabtidna waa ku cuni kartaa. Gadaal ayaa idinka tusaaya. Waxaan ka sameeyay sidaan u sameeyay step by step. Haddaan idin tusaaya. Waxaan ka sameeyay 2 koob iyo bar, nus koob oo bur ah, 2 koob iyo nus koob oo bur ah, wax yar oo cusbo ah, cusbada ka badinin, iyo active dry yeast oo 2 xabo teaspoon ah iyo nus ka dareysa haddii aad isticmaalaysid dhaladan. Haddii kalena waxaa isticmaali kartaa labadaas bashqadood oo yar yarka ah isticmaali kartaa. Marka waxaa ku qasaysaa wax yar oo biyo 4 qaado oo biyo ah. Gadaasheeda ku taala sida loo qaso. Waxaan ku dareysaa sokor ku dareysaa sida u jeedada aniga 4 qaado sokor aan ku daray. Iyo maxay ahayd 1 xabo ukunta waa iska dhaafi kartaa haddii aadan ukun rabin dhib ma laha. Waa ka soo qasi 10 daqiiqo camal biyo la taalay leebitada ama fixisada. Waa qasaaya hadda. Burku waa inaa ugu dartaa maxay ahayd biyaha kiskisina ugu dartid waa hal mar hodhodho ah ku siinin. Bur walbo aad qasayso ugu taas haddii kale xisaabta ama sasbirka arabtu ka badanaya uun ka jilcaya. Haddaad bur gadaal ugu dir kartaa laakiin waxa fiican kisto u jeedin hadda burkan waxa idin tuso ugu jiidayo xaraba markaa qasaysid inaa ogaatid yacni sida ay ka dhigaysid. biyo jilaaca zaid hadda ka dhigtid hadhow ma dubi kartid uu ka kala daadanaya biyihii aniga waxaa halka koob oo 8 ounce mise halka koob intaas ka soo harto u jeeda waxa ka soo hartay adiga 2 ounce camal ka soo hartay halka koob oo biyo ahay oo ku qasay oo u jeeda Soomaha koobkan ku qasay oo burka ku soo cabirtan waa kana waa koobka weyn labadiis iyo kan kale oo hal ah waa 2 koob iyo nus oo bur ah. Biyahana waxa ku cabirtay u jeedin bakeerigaas ku cabiro oo loogu talagalay koobkaas yarkaan waxa ku cabiray burka waa kana diyaar waaye. Hadda waxaan sameynaa waa dhigayaa waa qamiirana soo kaco adiga hawada ku xiran tahay iyo leebitadaada sida u cusubtaa burkaagu cusub yahay keetaanka. Iyo haddii oo yacni ku kici waay hal saac bar uu ku kacaya waa ka saameel adiga xoogaa iska caadiya saareysa oo qabow zaid aheenin jikadaada meel ka dhig waa ka saado soo kac ma ku soo kacsaa soo noqonaya hal saac kadib gacmaha biyo nadiif ah meel ku soo shubanaysa gacmaha iska soo dhaqaysa gacmaha biyo yacni ku qoysanaysa si burku uu kaaga dhagdhagin saliida soo marsanaysa يعني بيها إن إسكيل على سهديك السليد إنه كاغا صف أي كاغا سي إنسان كاغا جارين سيفتي كاغا مهم واي بيها إسكا نظيفي إنت هذا سليد آذن مفهمتي وحن كوض إسكا فهن يا كاساد رحنا نكب جناية ساسا وديارنا سمجد برك هدايا هدي أنجل عنها بيها كبدلها ساس رحنا مكاغا مكا آذن دولارين هين رحنا مركوا كاسا mid kale soo qaadato mackaasa waa u jeedaa sidaas ay yeelaysaa saliida suugada tartiib biyaha gacmahaaga leh dabka kula ordin ha isgubin waa kaasa hal mar waa wada gendin kartaa mar walba hadaa rabtid haddii kalena markuu hoos kaaga guduto hal mar soo wada gedin ma fahamtay saas ay yeelaysaa markuu ku wada guduto aa ka baxsanaysaa gududka sidaa rabtid adaa og marka dahab hadaa rabtid oo saas ah sidaas baa uga baxsanaysaa haddii aad rabtid sidaas waa kasii gaduudin kartaa burkan saliid muulaqin maasha Allah si fiican uu ku soo baxay si fiican loo qasay insha Allah qas samee isoo sheeg soo kuugu soo baxo waa ka dhexdiisa mujada sidoo ku soo baxay isbuun qurux inuu ku soo baxay saas uu ku soo baxay dhexdiisa saliid muusan cabin macaan kala arag saas inuu kuugu soo baxaa la rabaa haddii anugu cusub tahay subscribe garee haddii aad ka faa'iidid asxaabtaada la share garee waa kaasaa waxaa rabtid ku cuni kartaa sambuusa ku cuni kartaa
macaan isku yihiin asiga iyo sambuuska waaba la iskugu talagalaba. Haddii aad rabtidna waxaa ku darsan kartaa caanaha oo condensed milkiga, caanaha sokorta lagu kariyey. haddii yacni ay isleedahay macmacaan yar cun ee kaa qabato marmar saas ayaa yeeli kartaa. Condensed milkiga waa kana ama adaa guriga ku samaysan karo ama ayadoo daasadaysan baa suuqa soo gadan kartaa. Qaado yaraa ku cunaysaa dessert ahaan oo cunaa ujeedaa soo maa saas ayaa yeeli kartaa haddii aad rabtid ay kaa qabato. haddii kalena hadee burkaaga sambuuskaaga ku cunaysaa waxaa rabtidaana ku cuni kartaa. haddii khayr iyo nabadgelyo bashbash iyo barwaaqa idinkaga tegay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.